وحسكم الديدة ما يسفهم لا عدة وحسكوها يصدق أما يسفهم لا أما خلافه قد حياتي وجربة وضدك هلكم فردية وملاحظة قرنك وسياسيينتا وضدك إليتك وضدك نصر رأي أما كان حسثها هاتو أما هاتو ملاح كلا أما سياسيين هذا قوادا يويلك قال كعيد جوكتا أما كسمايل جوكتا أما اللغة جوكتا دقال سمو قوان اسم النعبة دول النمو ويربا طلقوا إنه هرقوا مرة ويربا إلا يشيس هذا ويربانو الدنيا لا ترطن عدة إسحي ستوى عنك عدة للربينا نشينا سدد كاستين نروفي عنوها لعنوا عنك عدة لقربينا الصومالي تصاليسو سدد دلكن هرقوا لوغو مري لعين وايديك إناد ست مادين وكفر أحسن هاي لكن وإناد أغاتان مسؤولية حمبار سلطاي مسلمات إن كانت ست مادين ودلكن نفر لهم وهذا كان سويت مادين إن تصالك النقطان سيدا وقف فضوط أو وقف حين كرام ثلاثة دلكن يبلغوا حسن الله إيه دول النمذي وين موقتها رجدي أمة الصومالية ويش موقتها شعب هي دولة ويسكو حرب الرباط ضدك الصومالية وحي دريما يعني ترتيب ترتيبهان كرامة أمة الصومالية وسوانا غنيسو خسارة أمو بدن أو النهرية الله قدام بنقول هان دونتو تاريخنا يقول دونتو معها أنيجا يريد الوزراء هي وزيرة كل جن وعيتاي هدي عن فرصة نقول فايدين وينهم متصومالي قف والبون نجم ذا وإنه أجادام مسؤولية أي كسران تلكن سيد الله سبحانه وتعالى هدي هذيكوا ست مالان إن كلا يقولك dadka la tusaaleeyo iskhilaafka iimaan lagu bedelo waxaan aaminsanahay dalkan inuu rajo leeyahay waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano haddii dalkeenu uu xasilo kulligeen nolosheenu intaan way ka wanaagsanaanaysaa haddii dalkeenu uu hagaago carruurteenu waxay helaysaa waxbarasho isbitaallo nabad adduunyada la tartamayaan لكن هدي إنتنا المجال حمر كنور وحتى هالك جوكت هدي جد كأن مرنا بقرينا لقول على النايم هدي أنا هبين كسر هدي ما كان حنوصلنا نسبتال تذكر هدي تقالها أن سميسنا ميل أن كل نوران أن هيثن ما شكحون تاز معيدا وما حين ولا شيء تاز كحون إنتي نالكم فددا وإنتي لجربي إني جيل كقدم بيا الصومالية الكون أكثر وبيبيان أنت أن هالكن سقط تمد وأنت أن كوسا خدي إن عند الصومالية هذا حقنا لكوله ميان سقط يدنا تاس أنت أن من هاي أنت نقول ده أو نجمعك
inaan nahay intii ku saakhiday inaan dhisno Soomaalida xaqna nool kugu lahaa waxaan idin sheegayaa idinkugu bishaareynaya boqolkiiba 75 ku dhawaad haddaanayba intaas ahayn dadka Soomaaliyeed waa dad ay da'doodu ka yar tahay 30 sano waxaan idin sheegayaa marka arrinkaasi waxa uu ka turjumayaa kow si aan adduunyada ula tartanno inaan haysano fursad aan kula tartanno inaan leenahay dhalinyaro boqolkiiba 75 ka ah dadka Soomaaliyeed tiradooda waxa ay tahay fursad weyn oo dalkan uu rajo weyn ku leeyahay in dib loogu dhiso laakiin in boqolkiiba 75 ay dad da'yar yihiin waxa ay leedahay khatar weyn khatarta ay leedahay waxa ay tahay haddaanay lahayn jaamacad ay dhigtaan markay jaamacad ka soo baxaan aanay shaqo helin haddaanay dalkooda rajo ka arkin waxaa badanaya dagaalka waxaa badanaya musuqmaasuqa waxaa badanaya badaha ay carruurteena ku dhacaya si taas aanay noogu dhicin marka dadkaas dhalinta yar cidii laga rabay inay gacanta u geliso Soomaaliya ka wanaagsan tan maanta aan ku jirno soo idinka ma aha soo annaka ma aha soo kulligeen ma aha waa inaan isku daynaa marka inaan bilowno jidkii lagu dhisi lahaa Soomaaliya ka duwan Soomaalida maanta aan joogno isku daalnaya maxaa inoo dana waxaa inoo dana inaan isu dulqaadano waxaa inoo dana inaan ilaahay u noqono waxaa inoo dana inaan ilaahay cafis weydiisano waxaa inoo dana inaan aqbalno dalka inaan wada leenno waxaa inoo dana in danta guud laga hormariyo danta gaarka waxaa inoo dan ah in qarannimada laga hormariyo qabyaalada waxaa inoo dan ah in kala cabsashada iyo beenta aan ku bedelno inaan weji furan isugu nimaadno runtana isu sheegno waxaa inoo dana inaan taariikhda mugdiga ahayd oo na soo martay ku dhawaad 30 sano aan ku bedelno taariikhda waxaa inoo dana inaan aqbalno in Soomaaliyada maanta aan haysano ama wadankan annagu aan haysano uu yahay dalka kaliya oo aan leenahay dal kale meel looma jiro dalkeenni waa kan dadkeennina waa kuwan meel walbood adduunka soo martid marka ugu dambaysa dalkaada ku soo noqonaysa si dalkeenna uu ahaado marka dal wanaagsan cid inoo dhisaysa oo kale ma jirta innagu waa inaan dhisana si markaan dalka u dhisano oon xooggeenna isugu geyno haddii khilaafaad uu jiro waa inaan isu nimaadno oon heshiina xukuumadda madaxweynaha iyo annagu albaabadeennu waa furan yihiin diyaar ayaan u nahay inaan idin dhegaysano laakiin idinkana mas-uuliyad baa idin tahay ugu dambayntii waxaan rabaa maadaama aad halkan isugu timaadeen maadaama dalkeennu ay soo dilootay dagaallo badan iyo khilaaf maadaama maanta ay rajo ay muuqato maadaama iftiin yar uu muuqdo waxaan rabaa inaan kow aniga iyo golaha wasiirada iyo madaxweynahaba inaan iskula dardaaranno inaan maalin walba xasuusnaano mas-uuliyadda aada noo dhiibateen inay tahay ammaanad idinku aada noo dhiibteen waan diyaar u nahay inaad nagula xisaabtantaan maalin walbood rabtaan inaad nala xisaabtantaanna waxaan diyaar u nahay inaan idinla fadhiisano idinka waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed iyo dalku waxa uu ka kooban yahay dad idinka ah walaalihiina carruurtiina ah saaxiibadiina dadka Soomaaliyeed waa dad aad u yar oo isgaranayo kulligood waa inaad dhidibada u astaan sida dadka la isugu keeni lahaa kuweenan siyaasiyiinta madaxda ama kuwa hadda aan xukunka joogin waxaan kula dardaarmaya haddii aad rabtid Soomaaliya inaad berito madax ka noqotid waa inaad ka sii shaqaysaa dalkii aad madaxda ka noqon lahayd haddii aad rabtid inaad u timaadid kursi aad berri ummadaada ku maamusho waa inaad sii bilowdaa dhagaxyadii lagu dhisi lahaa inaad sii dhistid
muhiima in la isu dulqaato la ogaado adduunyadu inay nala yaabtay carruurteenna ay badaha ku dhacayaan dalkeenna isagoo khayraad ka buuxo ummadeenna ay gaajo u dhimanayaan inay abaara soo noqnoqonayaan oo na dilooday iyadoo biyuhu ay dhulka hoostiisa waxyar u jiraan isku daalnaya maxaa inoo dan waxaa inoo dan ah inaan ka baxno dariiqa hore aan ku jirno waxaan diyaar u nahay inaan jeexno dariiq cusub waxaa jirta fursaddii dariiqaas lagu mari lahaa waxaan rabaa inaan gacadna siisaan waxaan rabaa inaad ummadda soomaaliyeed isu keentaan waxaan rabaa inaan is-afinno waa bil ramadaane waa inaan dalkan u ducaynaa annaguna u ducaysannaa waa maad